الحمد لله halkan waxaan joogaa 4 sano iyo 2 bilood baan u mareynayaa tobankaa bilood ilaahay waxaan rajeynaya inuu caafimaad iyo lagu gaarsiiyo dabcan waxaan ka warrami doonaa marka aan waqtigeeda la gaaro laakiin hadda shaqada waxaan ku focus garanayaa shaqada aan u hayo Puntland insha Allah wixii ka dambeeyana dee waa tala kale meeshaan ka aadaya iyo inaan siyaasad kusii jiraya iyo in aan waxaa la yiraahdo dhanka private sectorka u leexan doono options waa tiro badan yihiin in waxbarashadeydii iyo macallinimadii ku laaban doono options badan baa insha Allah hor yaala mid ma dooran doona dad badan oo taageerayaashaada ka warsugaya ma laga yaabaa inaad soo sharaxdo waqtigeeda aan ka jawaabaya insha Allah laakiin waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo sheego insha Allah warar baa moogtahay warar badan baa soo maraya madaxweynuhu sano ku darsanaya iyo laba ku darsanaya horta taas anu awoodda mabalhiba haddii qofka la siinayo inuu iska darsan karo isagu dee waa wax la yaab leh noqon lahayd laakiin waxa weeye waxaan rabaa inaan u sheego doorashada Puntland si mugla ay waqtigeeda ku dhacaysa 8 January 2019 doorashada waa dhacaysa insha Allah sida